السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساجكيغان wuxuu maanta ku socdaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo aniga kamid ahay hooyaa tahay nolol baa soo martay uwad baa soo korisay waa soo waaweynaadeen waa koreen aayatiin iyo mustaqbal baa la jeceshahay hooyada maxay la jeceshahay gabadheeda inay hadday wax baratay reer fiican gasho guri fiican hesho nin fiican ilaahay siiyo u baariya aan furin qadarku hadduusan dhammaan wax kastoo ay rabto u sameeya wax kastoo ugu taagan oo ugu xaadira hooyadu gabadheeda waxay la jeceshahay meeqaanka u sareeya nolosha wiil u sameeya wiilkeeda gabadha uu guursanayo meeqaankaasoo kale way hooyada Soomaaliyeed ugu la jeclaan weysaa wiilkeedu inuu gabadha baari u noqdo maxay ugu jeclaan hooyada Soomaaliyeed maxay leedahay naag baa iska wadwadata meelahaas ma arka wiilkaygi naag baa iska wadwadata bay leedahay naagu si hadal ku soo celin karin oo dhaadhaan u yahay haysata bay leedahay gabadheedana inay ninka hoggaanka u qabato oo ninka amarto oo ninku gabadheeda wax kasta uu rabo uu u sameeyo bay jeceshahay marka xagee sinaanka imaanaysa iyo wanaag hadiiba hooyadii aniga aan ahaaba hooyadan aniga aan ahay aan gabadhaydana wiil saasa la rabo wiilkaygana aan la rabo gabar u tumo feero iska celiyo yiraahdo darbiga saaro aan la rabo xagee ma imaanayso waayo waxaan iskaga daba wareegno saas iskaga daba wareegna anaga dhanba waa waxa qaldan oo aan rabno waxaan rabnaa wiilku inuu naagta feero uu guursado iska celiyo la dagaalamo feer iyo laad kala daalo uu yiraahdo xagga iga mar gabadhana waxaan la rabnaa nin saa ka daba yiraahda oo gurigay rabto noloshay rabto wax kastoo ay rabto u sameeyo baa rabnaa marka labada isma qabanaysee wal hooyooyinka aanu kamid ahayo yaa bal inta aa gabadhaada la jeceshahay gabadha wiilkaagu guursanayo ama guursaday inta la jeclo wax kale ha uga badin inta gabadhaada aa la jeclaan lahayd la jeclo gabadha wiilkaagu guursanayo ha ka naaqosin wiilkaaga gabadha guursanayo la jeclo inta gabadha adiga aa dhashay aa la jeceshahay intaasaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo anigu aan kamid ahay dhamaantiin waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh